kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan muuqaal cusub aan kaga hadli doono kooxda kubadda cagta Barcelona. muuqaalkan waxaa si toos ugu daawanaysaa YouTube-ka channelka Barca 252 iyo page-ka aan Facebook aan ku leenahay Barcelona Somali Fans. muuqaalkan share dheh gaarsii taageerayaasha kooxda kubadda cagta Barcelona si ay u arkaan ay ugu soo biiraan page-ka iyo YouTube-ka Barca 252. maanta guud ahaan waxaan u hadli doonaa kooxda kubadda cagta Barcelona caawa ciyaari doonto wareegga sideedamaadka UEFA Champions League. xogta kulanka Barcelona vs Bayern Munich tartanka UEFA Champions League wareegga sideedamaadka. saacadda ciyaarta la daawan doono waa 4 saac habeenimo xilliga Geeska Afrika. garsoore Damir Iskumina ayaa dhexaadi doono kulanka caawa ee wada ciyaari doonaan kooxaha Barcelona iyo Bayern Munich. garoonka ciyaarta caawa lagu ciyaari doono waa Estadio da Luz ee Portugal. wararkii u dambeeyay labada kooxood Barcelona iyo Bayern Munich shantii kulan u dambeysay ee wada ciyaareen Barcelona iyo Bayern Munich laba jeer kamid ah waxaa badisay kooxda kubadda cagta Barcelona halka kooxda Bayern Munich 3 jeer ee badisay. Barcelona ayaa wajihi doonto kooxda heysata horyaalka Bundesliga ee Bayern Munich koobka horyaalka Yurub UEFA Champions League. Arturo Vidal iyo Sergio Busquets ayaa dib ugu soo laabtay kooxda kubadda cagta Barcelona kadib ganaax ay kaga maqnaayeen kulankii Barcelona la ciyaartay kooxda Napoli. ayadoo Busquets la hubo inuu ku soo bilaabo doono safka koowaad kulanka caawa ee wada ciyaari doonaan Barcelona iyo Bayern Munich. Samuel Umtiti ayaa dhaawac ku sheegi doona kulanka caawa Barcelona ay wajihi doonto kooxda kubadda cagta Bayern Munich halka Usama Dembele uu ku soo laabtay liiska kooxda muddo dheer kadib. Philippe Coutinho ayaa wajihi doona Barcelona inkastoo loo badinayo inuu ku soo bilaabo doono keedka. Ivan Perisic ayaa la filayaa inuu safka koowaad ee Munich ku soo bilaabo doono maadaama uu kaga maqan yahay Koeman halka difaaca xulka Faransiiska Baafod uu sheegi doono kulanka caawa. daafaca bidix kooxda kubadda cagta Bayern Munich Davies ayaa dhankiisa laga cabsi qabaa inuu kulanka caawa wada ciyaari doonaan Barcelona iyo Bayern Munich. Tam uu ahaa waay kadib shaki ayaa la gelinayaa inuu ku sheego dhaawac. kooxda Barcelona ayaa guul gaartay 8 kulan ee u dambeysay UEFA Champions League. shaxda macquulka ah labada kooxood haddii aan ku hormarno kooxda kubadda cagta Barcelona waxay adeegsan doontaa 4-4-2 goolaha istaagan daafaca Semedo PK Langanet Jordi Alba khadka dhexe Sergio Busquets Frenkie de Jong Rakitic Roberto weerarka Leo Messi iyo Luis Suarez. dhanka kale kooxda kubadda cagta Bayern Munich shaxda macquulka laga yaabo inay ku soo gasho kulanka caawa 4-2-3 goolaha Manuel Kimmich Putin Alaba Davies Thiago Alcantara Carrasco Gnabry Muller Perisic Roberto Lewandowski ayaa noobaha u ciyaari doono waana shaxda macquulka labada kooxood laga yaabo inay ku soo galaan kulanka caawa. ciyaarta caawa Barcelona iyo Bayern Munich waxaa la daawan doonaa 4 saac habeenimo xilliga Geeska Afrika. soo saadaali kulanka xiisaha badan ee wada ciyaari doonaan kooxaha Barcelona iyo Bayern Munich. waad ku maasantahay daawashada muuqaalkan share dheh si ay u arkaan taageerayaasha kooxda kubadda cagta. guud ahaan waxaa halka kusoo afmeeri doonaa muuqaalkii aan kaga hadlayna kooxda kubadda cagta Barcelona caawa ciyaari doonto wareegga sideedamaadka UEFA Champions League. tibinta saakay waa anigu Cabdisaaq Maxamed Axmed. soo saarista barnaamijka saakay waxaa gacan iga siiyey Anwar Isaaq Axmed. intaan muuqaalka xiga isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo.